asxaabay meel kastood naga daawanaysaan kusoo dhawaada mar kale iyo mid ka mid a barnaamijyadaan idinku talagalnay maanta oo sabti ah waa barnaamijkeenii labaad wararkii ugu dambeeyay ee soo dhacay ayaynu barnaamijka ku faaqidi doonaa. haddaba taariikhdu waa 9 bisha May. barnaamijka waxaynu ku bilaabaynaa ruushka oo la sheegay in uu hub soo geliyay Iran isagoo waliba soo mariyay hubkaas badan oo dhinacan Hormuz iyo maahane dhabarka dambe ee Iran bad yaro ku taalo liraado Qazwin oo ruushku uu ka dhow yahay halkaas hubkii laga soo geliyay. saraakiisha sirdoonka Mareykanka ayaa sheegay inay xogta heleen oo ay ogaadeen, laakiin maxaa laga qaadi karaa ruushka? wax laga qaadi karo ruush ma jirto. cunaqabatayn baa la saari karaa. hadda cunaqabatayntii saarneed ruushka shidaalkiisa lama gadan karo sida loo lahaa. markii Iran ay xirtay Hormuz, Mareykanka wuxuu ku qasbanaaday si adduunka shidaalkiisii uusan sara u kac waalan uusan u gelin in la yiraahdo dawladihii waaweynaa qaarkood Jabaanka iyo Hindiya iyo ruushka waa ka gadan kartaa shidaalka. ruush isxaan buu uga hayaa Mareykan may isxaan wuxuu uga hayaa Iran xirtay meeshaan. Yurubtii iswaalaysay gaaska anaga ruush ma ka gadanayna lahayd way ku qasbanaadeen. marka hadda ruushku marka inuu tankiyu dhaho way waa mahadsantihiin Iranay hawl fiican oo qabateen. markaasuu muxuu sameeyay ruushka? gantaalo way ku jiraan, alaab kale way ku jiraan, laakiin muhiimadda waxay tahay diyaarado fara badan oo drones ah oo markab lagu wada loo keen. sideedana waxa ogaatiin markii hore ruushku droneskan iyo waxan iyo qatar kuma ahayn. Iran khubaro u dirtay. kuwii Iran ay sameeyay loo geeyay Ukraine iskaga dhiciyay. ruushkii marka muxuu sameeyay? qaabka ay u samaysan tahay iyo nidaamkii iyo wixii inta arkay de waa farsamo yaqaan gantaalaha iyo taangiyada iyo samaysto waxaan ma u daahay. markiiba warshad wuxuu sameeyay markiiba inta soo daadinaysa 200 xabo drones. waaba la dhaafay ba Iraniintii la dhaafay. hadda marka muxuu samaynayaa? abaalkii u gudaya markoodii maadaama dagaal weyn ay galeen oo drones fara badan ay isticmaaleen kuwaana sii qaatulay. Mareykan marka asagay u taala meeshuu ka qaylinayo iyo meeshuu cunaqabatay saaraayay wax la kala qarsanaa meeshaan ma jirto. sheekadu marka halkaas ay maanta joogtaa. haddaba markaan idin tusoo warbixinta waxaa qoray telefishinka Al Jazeera oo la soo xiganaya wargeyska Mareykanka ee yiraahdo New York Times. wuxuu leeyahay ruushku waxa uu siiyay Iran wada cusub isagoo u marsiinayo oo aan Hormuz ahayn ayuu wax siiyay hub ayuu siiyay leeyahay. haddaba waxa la sheegay waxyaabaha loo geeyay Iran inay ugu horeeyaan diyaarado drone ah oo Iran loo geeyay waxaana laga soo geliyay badda la yiraahdo Bahru Qazwin ama badda la yiraahdo Qazwin ayaa dhankeeda laga keenay. waxaana la sheegay in ay soo qaadeen shixnadahaasi maraakiib ruushka uu leeyahay oo dhanka Qazwin laga soo geliyay. marka halkaas ayaana la soo geliyaa leeyahay badeecooyina ku jira, waxa ku jira maartay gantaala ku jira, waxa ku jira drones, waxa soo dhan ku jira leeyahay. yaa qoraya waxa qoraya wargeyska la yiraahdo New York Times laga soo xiganaya. isaguna wuxuu ka soo xiganayaa saraakiil Mareykan ah American oo ka soo xiganaya oo iyagu xogta ogaaday. marka waa la ogaaday iyo waa la arkay iyo waxaan ruush ma qoraa waxaas ma qoro. ruush maxaa hubkan u siisay iyo waxaan iyo shaqo kuma lihiin u leeyahay. marka hawshaas halkaas horta halka iyadana warkaas waa cusub yahay. warka kale ee muhiimka ah soo kordhay maanta oo Israa'iil oo dhan haysta muxuu yahay? ciidamadii cirka Israa'iil ayay Iran ka dhex kaluumaysatay, way dhex gashay, waa ka adeegatay. ciidankii saraakiishii iyo dhalinyaro yaroo hadda la barayay sida loo duuliyo diyaaradaha iyo waxaan iyo waxa la arkay sawirro wada qaadaya
baaritaan ay sameeyeen nimankii sirdoonka waa la raadiyey qaar ka mid a dhallinyaradii wixiyaa la soo helay sidee waxu jiraan waaye waxay yidhaahdeen midaa wuxuu yidhi aniga 5,000 waa diiday laakiin asxaab badanaa 5,000 oo dollar qaadato orbacintaa 5,000 waaye 5,000 bas waa fiiriyaa 5,000 oo dollar la siinaa wixii soo sawir la dhaho eriyada dhan meesha diyaaradaha ku kaydsan yihiin hangarka ay ku jiraan godka dhulka hoostiisa diyaaradda ku jirto inta mitro ku fadhiyo gantaala la rabaa afka in loo geliyo wixii oo dhan waa la sawir waa la diray marka wuxuu yidhi aniga 5,000 meelaha diyaaradaha kuma dhiibaaye meelaha waxaa aniga ogolahayaa eriyuu yidhi 5,000 oo dollar inay igu siisaan gantaalaha difaaca meelaha yaalaan kama sii daran ماشي قتالكي واحد دفاعي لا ويا دي سو صورة شط كرة إسرائيل مركا علي أيه ساسا اسكو خلافنوين مركا وحالي كوي كلا كور كوي كلا وأبيك تين ويروح على نص صورة ولا سي إيران واصل بجد إذا بدأ عركوا على الصورة ولا جورا دي اللي نصل دي كلام على سبعنا محل سبعنا شيء كذي واقصا ساكي مركا وحاكا نحكي حسن أول ضد شعب اللي قبني تلابيبي مالهاني الوقوع قبني موقتها هذا عيدا مدي وليبا عيدا كي عرك وأود إسرائيل يكون عرطوا تبارك لو عن عرك أهين ما بهاي سبب دولك أسبب الله كذا ما الذين الجزوا عركتين من دول يقول تبار ما جرت لكن عركاس عيدا كي عركا مركان لا نحق عليه هذا بقى أريد تسجل رد اللي هذا الرأي اليوم وحيلان هاي فضيحة وين أي سكرت أو كسابسن جاتوس نما وين وحين جلجش إسرائيل ودن إذا ماذا عركة إسرائيل أيا الله شيء إن معلومات لنا أمنية أو حساسية أدرين إيران يجو كوبد الشيء لعك لعك أم بدنين أيه كوبد الشيء شن كونوا دولار وحوين معها أسكرتي مركب شن كونوا دولار أسكرية لا أصلسية أو صورة مهم كادري والله يا مركب هذا وحليه هاي هالكاس وحكتاجن tii ugu xumayda ka taagan marka waa arki doonaa kulay haduu dagaal dib u qarxo Israa'iil saldhiyadeeda jugta laga gelin doonaa sawiradoodii waxoodii dhan waa la haystaa xogtii waa la gudbiyaa la leeyahay qodobka kale arimaha Hormuz aynu galaynaa Ingiriiska ayaa maanta wasaaradiisa gaashaandhigga waxay ku dhawaaqday mid kamid ah maraakiibta dagaalka Ingiriiska uu ku dhaarto in loo dirayo Hormuz warbaahinta Ingiriisku marka waxay leeyihiin muxuu ka doonayaa halkaas marka waxa leeyahay wuxuu ka doonayaa Faransiiska iyo Ingiriiska maalin hore sootay ciidan dawlado kala duwan ka kooban ay habeeyeen oo ay yiraahdeen Hormuz tageena waxaan ka shaqaynaynaa sidii maraakiibta nabadgelyo loogu gudbin lahaa meesha miinooyinka looga saari lahaa Mareykanna anagu shaqo kuma lihin Iiraanna waa la hadlaynaa annaga marka si dhexdhexaadnimo ku gudbinay Trumpna ma hoostageen leeyahay Trump amarkiisa iyo wixiisa ma hoostageen Iiraanna waa iskala hadlaynaa maraakiibta meesha ku xanibanna waa gudbinaynaa marka nin laga wareysanayay telefishinka Al Jazeera ayaa waxa la dhahay sheekadan Ingiriiska dhahay ka waran iyo Faransiiskana awal markab kale oo weyn oo diyaaradaha xambaaray u sii direen ali bariga dhex Ingiriiskana maanta soo diray markuu waxa isku kay qaban la maraakiibtan meesha gudbina miinooyinkana waa bixina Iiraanna waa iskala hadlaynaa Mareykanna ma hoostageyno marka nidaamkaas aan fahminayn miinada kaligeed ma iska gasho meesha dad gashaday maraakiibta dada celiyo dhah marka soo gudbinaysid Amerikaana soo gudbin waaye miinada Amerikaana u dhawaan waaye oo wixii hub iyo ciidan u haysta meesha isugu geey marka adoo hal markab la wiifay ma soo miinooyin saaraysa oo maraakiibta soo gudbinaysa Iiraan waa iskala hadlayna marka Iiraan maxaa ku dhahaysaan miinooyinka agilisa meesha bixiya maraakiibta soo gudbiya marka dagaalku waaba dhamaadeen dagaal ma jira American meesha muxuu u fadhiyaa Iiraan meesha maxay isbaarada u dhigatay marka isbaaradiisa qofkii u taalay hadaa adig ka qaadis maxaa yaal meesha marka sheekadaas xogaayr waxa leeyahay wax badan ku jira sheekadu marka wali ma kala cadaan leeyahay Ingiriisi iyo Faransiis waxay meesha ka rabaan
weli ma cadda. iiraanna weli warkoodaas warkama soo saarinoo weli iiraan kama jawaabin. haddaba markaanu idintusoo wararkii ugu dambeeyey sheekada laga qoray wargeyska ingiriiska ka soo baxay la yidhaahdo Times ayaa saakay qoray warbixin uu leeyahay markab dagaal oo uu leeyahay ingiriiska oo magaciisa la yidhaahdo Dragon ayaa ku wajahan dhanka iyo bariga dhexe. wargeyska Times wuxuu soo xiganayaa wasaaradda gaashaandhigga ee Britain waxay sheegtay in markabkaas oo ah kuwa gantaalaha tuura uu ku wajahan yahay gobolka bariga dhexe waxaana magaciisa la yiraahdaa Dragon ayaa la yiraahdaa. Dragon wuxuu aaday bariga dhexe si uu markaa uga qayb galo isaga iyo dalal kale oo jinsiyado kala duwan ah si ay uga qayb qaataan arinta Hormuz sidii loo furi lahaa maraakiibta si nabadgelyo ugu gudbi lahaayeen. marka sheekada iyaduna macluumaadkaas waa isku qariban yahay. marka mar dhow waxba soo bixi doona macluumaadkaas. iiraanna way ka hadli doontaa, Trumpna waa ka hadli doonaa hadii la yiri labadiinuba idinma qusayso annaga kaliya Yurub haddaan annaga furayna meesha. marka labadii qof oo meesha isku haysatay marka xagee aadayaan. marka sheekadaas waa sheeko confuse badan ku jira xaalkeedu marka ma fiicna. waayahay video ay maanta soo bandhigeen nimanka la yiraahdo Hezbollah inkastoo videoga aan soo deyn karin laakiin videogaas Al Jazeera ayuu ku jira. waxay leeyihiin drones laba ah ayaa waxa loo diray saldhig ay joogaan ciidanka Israa'iil saak. droneski markii loo diray labadii drone midna waxay aadeen meesha saldhigga midna meesha taangiyada ay yaaleen. askariga marka wuxuu joogay meesha taangiyada. askarigii taangigii uu galay way dul istaagtay taangigii uu ka soo baxay waa cararay asagoo cararaya saas kaamirada ugu haysa.